isugu keenay halka caafimaad ku soo wada toosnay waxaan ku sugannahay hoyga uu ka degan yahay magaalada Boosaaso taliya qaybta gobolka Bari xaqiiqdii xalay xilli dambe oo midnayd aan ka wada hadlaynaa ciyaarta iyo nabadgelyadeeda markasta taliya waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida walbaabkaagu noogu furan yahay iyo inaad ka go'an tahay amniga magaalada Boosaaso guud ahaan gobolka Bari iyo barnaamijkan aan wadno ee kubadda cagta waa xaqiiqdii ah shakhsiga ugu horeeyay aan kala hadalno in uu mataqaanaa barnaamijkan qabsoomo laba kelmadood baan ku soo koobayaa muddo reer Boosaaso waa la hadlaynay dadka ku nool iyo taageerayaasha kubadda cagta maanta waxaan sheegayaa labada kooxood ciyaaraya garoonka waxa laga rabaa kooxda duhurnimo si ay nasasho ugu qaataan hal saac iyo bar ciyaartaasina 2:45 bay kick off dhacaysaa waxaan la ciyaari doonaa full time kii heerka ku qornaa tan labaad ciyaartooygii garoonka sababa ciyaartaasi inuu khalkhal geliyo oo dagaal ku sameeyo taageerayaashiisuna dhis sameeyaan waxaan halka ka sheegaynaa in kooxdaasi ay dhibcaha waayeyso ciyaartooyga dhammaantoodna ay noqon doonaan kuwa tartamada Puntland oo dhan aan ka wada mamnuuceeno ama ha noqoto Soomaaliya ama ha noqoto Puntland ama ha noqoto caalamka maadaama xogtan ciyaarahani ay tahay international database ee kubadda cagta adduunka tan Soomaaliya Afrika ba isku xiran yihiin waxaan rajaynaynaa taageerayaashu inay garoonka u yimaadaan 70 dhiirigelin iyo niyad wanaag iyo habsami socodka tartanka waxaan rajaynaynaa insha Allah in tartankaasi ciyaartaas nabadgelyo noogu dhamaato tartankanna muhiimadii laga lahay ujeedadii laga lahay hadafkii laga lahaana wuxuu ahaa in garoonka Boosaaso la arko dhalinyarada gobolka Bari saddex galaan ay halkaas ka timaado saaxiibtinimo iyo wanaag iyo isbarasho wanaagsan taliya qaybta mar labaad waxaan kaaga mahadcelinaynaa sida aad ciyaarahaas intay socdeen amnigooda ciidanka booliska ka howlgala gobolka Bari u sugaayeen mas'uuliyiinta gobolka iyo degmadana oo mahadcelinaynaa duqa degmada qandalana waxaan ugu mahadcelinaynaa sidoo garab taagan yahay kooxdiisa oo xaqiiqdii oo markasta habsimo socodka tartanka noogala shaqeynayay xaqiiqdii qof sports soo ahaa kubadda soo ciyaaray oo na garanaya dhibaatada weyn meesha ka jirta waxa weeye dadka hogaaminaya kooxaha oo aan maamulka kubadda cagta aqoon maamulka kubadda cagta qofku markuu yaqaan wuxuu ka dheeraanaya xaafad qabiil intaba uu ka dheeraanaya waxaan leeyahay kubadda cagtu insha Allah waxaan rajaynaynaa inaan tababaro joogto ah gobolada u qaban doono si ay u fahmaan macnaha kubadda cagtu waxay tahay iyo muhiimadda ay u leedahay xaalad kastoo meel ka jirta kubadda cagtu way ka leexaysaa waxayna xujiyeysaa dhinaca wanaagga iyo horumarka ugu dambeyntii waxaan leeyahay sharciga xiriir kubadda cagtu soo qoray waa sharci international ah xaqiiqdii way jiraan albaabo badan oo la soo garaacay laakiin waxaan u qaadanay in tartankani guuleysto marka amadana taliya waxaan ku leenahay waa ku mahadsan tahay garab istaagaaga albaabkaaga noo furan iyo Boosaaso nabadgelyada guud uga shaqeynayso kuna soo dhawow galabtan waxaan ka rajaynaynaa in ciyaartana la dhameystirto ay noqoto ciyaartii ugu qurux badneyd dadka ciyaaraya waa ciyaartooyga professionalka ugu fiican Puntland waxaan filayaa ciyaar qurux badan dhacaysa garsoorkana xiriirku waa adkeynaya kusoo dhawo macmiil adeega e-bank ee bangiga Salaam kaasoo lagu sameeyay dib u habeyn iyo casriyeyn ugu horeyn soo gal website-ka Salaam Bank oo ah salambank.net gali userkaaga iyo passwordkiisa waxa ku soo baxaya qaybaha uu ka kooban yahay e-banking oo kala ah qaybta akoomada accounts kaasoo loogu talagalay in macaamiishu kala socon karaan dhaqdhaqaaqa akoomadooda bangiga Salaam sidoo kale waxa arkaysaa qaybta mushahar bixinta payroll oo u sahlaya xarumaha ganacsiga iyo jooga goobahooda shaqada inay shaqaalahooda u dirsan karaan lacagaha mushaharaadka si fudud sidoo kale waxa uu leeyahay payroll report oo ah report ku sahlaya in dhammaan dhaqdhaqaaqa mushahar diridda aad dirtay aad ka heli kartid isla markaana aad daabacan kartid sidoo kale waxa arkaysaa ama uu leeyahay e-bank qaybta jadwalka maalgelinta investment schedule oo ah qaybta macmiilku uu kala socon karo hadii uu ka qaatay maalgelin bangiga Salaam maalgelintiisa iyo inta uu harsan dayn bixintiisa